waqti dambe haddana waxay ogaadeen buyayda ama hooyaduna inay baad leeday haddana fikrad kale qaateen oo ah ninku waa uun qarxiya ama waa kobciya uune qofka kuusan inuu beedka ku dhex jiro haddana buwaagtooda kale waxaad ku arkaysaa xabadda beeda oo qofka kuusani uu dhex yaallo waqti kasta oo aqoonta la leeyay waxaan wax lagu eegaya waxaan soo koreen ayaa xaqaa'iq badan la ogaaday quraanku se waqtigaas wuxuu ka waramayaa in insaanku min maniyin yumna min dhakarin wa unsa in ilaahay ka abuuro lab iyo dhadiga isu tagoodo labadaba in alla ka abuuro in ay markaasi ka dhalato nutfatin amshaaj sa ilaahay quraanku tilmaamayo candhuuf isku qasan oo beedkii hooyada iyo isbaamkii odaygaas kaga qasan dabeetana quraanku wuxuu tilmaamayaa in atwaar ilaahay uu abuuray inaan mar qura qofka bini aadamka la wada abuurin laakiin tawr bacda tawr atwaar in loo abuuray markaasuu quraanku wuxuu kaloo tilmaamayaa tawr kasta ama stage kasta magac buu bixiyay even scientifically maanta stageska bini aadamku maraa magac kuma leh scientifically embryology marka la daraasaynayo waxa la yiraahdaa usbuuca koowaad usbuuca labaad usbuuca saddexaad usbuuca afraad lagu daraaseeyaa laakiin magac ma leh quraanku magacyuu u bixiyay nutfa calaqa mudgha fakasawna al'idama lahma waxa loo bixiyay maxay magacyo asmaa ولذلك واحد العلماء أرنت الله صوبان دقيقة وحولها إعجاز كقرآن كانوا وياب كليبة وحويان بولي scientifically وحنو أنه نيمس كمقعية ويني أيام إنكم مقعية وضعتان بولي أنه وحنو هاي سنة ويقى تضبات ويقى لبية تبنات ويقى صدحة تبنات ويقى قبان وهينا لكن مقعية وما هينا بالضبط دينا مقع كستو قرآن كنت المامية ويقى قاسي وسيدة ويقى هاي مروا نطفة نمشاجي هاي marwa calaqa yahay calaqadu waa lulubadana waa la oran karaa shayga meesha sudhana waa la oran karaa waxa yari baadka yariya oo nutfatin amshaajigu riximka ayay meel dalooshata dabeetana si lulubada yar bay ka laalaadsantaa mucallaqana way ku tay waana xinjir dhiigo kale weegtay mudghadu waa shay mar la calaaliyo in typically تاجان ميا الله يدعى أن فلبيني أو اختارون من كواوين يمر كل ما كم ده يا وحلو حنا دوجي أبنا هاي مضغضة شيء حبط حجاب وقبضة تروي على لي وصاصار وحلو تبي كل شيء سويجي هاي بقول حتى مركا يلا قالوا قبضة جود جودن كي يلا تسويجي هاي exactly بقوله حتى structure كقاب كوفهم قريسين هو كاس بقوله مقع كفي حنا الله بحين كربوا وحمر العلالية إنه يهاي ما جرتبه تلمامية إلهي القرآن وحكو تلمامية إنه مضغية وحي إلهي تلمامية إن دبتنا لفلا أبورو دبتنا هلي بالهوية دبتنا سدا حديث هي نصوص القرآن كاكو صاررتي أنا قضايات كان مرة بوينا مدمدو قورنه إن شاء الله قار كم ده وأن هي أداسي وحيابها بحث ذي كم ده وحلقة يابا أجلدي اللي بيسقاش كان وصلك هذا الله إنك هلي كرتا عدينتا رسالة النبي محمد موضوعها والله بس عضوضة إن المسائل كان قيب بدنا كم إذا كصابن دقني عداف سمالي دونس عدي في عربي أو إنجليزي دونس أنا وابك هذا شو سفي عم بيقولها لسه كتبت عن شيء يوم ما جاءنا وشيخ الزنداني يقول بلا شتكيها لسه وابك أتصور نقلي كرتا مسألة أنا وحي شيء سانو إلى سبحانه وتعالى سنريهم وتصين النبأ إلى وأنا لا تسيء هذا مركي ميكروسكوب كاسله لي أي واحد لو قاعد يوضد أمره علمه يكوريتان كيس أي سيد وكره إلى exactly وكيه هي سيد القرآن كوشيء يقرأ آيات كان إلهي سبحانه وتعالى وأنفاق أنفس كبكة السنية وحلنا هو معجزة علمية في القرآن إلهي القرآن كوحك لي وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها إلهي وحلي وقل الحمد لله إلهي بما هذه السقناط سيريكم آياته السين للاستقبال سيريكم آياته سيمان دنبا الله يدن تصين دون آيات كيس
fatacrifuunaha markaasayda garan doontaan baa la leeyahy subxaana wa tacaala. marna waa war, marna waa aragti. mar waa waroo nusuus qur'aan iyo axaadiisa sidan wax u sheegtay, marna waa aragtiya wixii baad arkaysaa, ishaa lagu arkaya. ilaahay wuxuu leeyahay ilaahay aayaadkiisa wuu idin tusi doonaa, markuu idin tusana fatacrifuunaha. alfaau litartiibi watacqiib. iraa'ada siin baa lagu isticmaalay, ama ictiraafka fa baa lagu isticmaalay. sanuriikum aayaati, sayuriikum aayaati. ilaahay waa idin tusin doonaa aayaadkiisa, laakiin marka uu idin tusiyo fatacrifuunaha, markaasa idin garan baa la leeyahy subxaana wa tacaala. waxaan leenahay mawduuca kani waa mawduuc markaasi culammadu ay wax badan ka soo bandhigtay. waana mawduuca aan leenahay ilaahay mar hadduu leeyay qul anzalahu aladii yaclamu sira fi الsamaawaati wاlard. maanta culimmada ugu waaweynee fanniga kama waranta waxaa ka mid ah doctoorkan ugu caansan geologiga, waxay yidhaahdaan ninka afraad ee geologiga buu ahaan jiray sideetanaadkii, iminka dee waaba laga yaaba inuu sii dhaafay, zaghluul najaar. waxaa ka mid ah sheekh zandani, waxaa ka mid ah culamo badan oo maanta muslimiin oo fanniga kan takhasusaad ka dhigatay oo soo bandhigaysa. masalan masaa'ilka cajabta leh ilaahay subxaana wa tacaala qur'aanka wuxuu kaga warramayaa maraj albaxrayni yaltaqiyaani baynahumaa barzakhun laa yabghiyaan. ilaahay subxaana wa tacaala aayadaasi qur-aanka ah wuxuu tilmaamayaa ilaahay inuu badaha isku daro oo ay kulmaan oo laysku walaaqo. haddana qur-aanku wuxuu sheegayaa in barzakh uu u dhaxeeyo waana isku darsamaynin. haddana qur-aanku wuxuu sheegayaa yakhruju minhuma allu'lu'u waalmarjaan, lu'lu iyo marjaankana in lagala soo baxo. culammadu aayaadkaaba waagii hore markay fasirayaan bacd alishkaalaat bay kala kulmi jireen. ishkaalaadka ay kala kulmi jireen waxaa ka mid ah see loo fasirayaa bay yidhaahdaan maraj albaxrayni yaltaqiyaan. maraj almuruuj fi luqa waa maxay? alikhtilaaط. fahum fii amrin mariij ay mukhtalad. waa ikhtilaaط. maraj albaxrayni ilaahay wuxuu isku walaaqay baa la leeyahay labadii badood iyagoo weliba maxay yaltaqiyaana. haddana waxaa la leeyahay baynahumaa barzakhun, barzakh baa u dhaxeeyo laa yabghiyaan, iskuma xadgudbayaan. barzakh baa u dhaxeeyo waa la isku walaaqay, haddana barzakh baa u dhaxeeya oo iskuma xadgudbayaan. markaase haddana waxaa la yidhi, markaasay culammada badh odhan jireen malaa waa almaa ilcadbi iyo almaa ilmaalixa oo waa webiyada iyo kuwa kan oo waa kan meesha yara iska galaan. haddana waxaa la yidhi yakhruju minhuma allu'lu'u waalmarjaan. lu'lu iyo marjaanka mid ka midana cilmiyan waxaa la ogayay biyaha dhanaan mooyaane inaan kuwa kale lagaba helin, only biyaha dhanaan. see haddana loo fasirayaa bay idhaahdaan haddaynu idhahno waa biyo macaan iyo biyaha lu'lu'u waalmarjaan. qarnigii labaatanaad lixdameeyadiisii waa dhoweyd oo ah ayay waxay isku dayeen inay caddayn karaan biyaha in barzakh u dhaxeeyo, oo baduhu inay bado kala nooca yihiin, dushuunbay bad ka wada yihiin inayna isku nooc ahayn. waxaana isku nooc ku ahayn marka laga eego kahaafadda densitiga, waxaana isku nooc ka ahayn xaraaradda kuleylka, waxaana isku nooc ka ahayn muluuxada dhanaanka, waxaana isku nooc ka wax walba ku kala gedisan yihiin. badaha wax walba ku kala gedisan barzakh baa u dhaxeeya. badaha waxa u dhaxeeya bay leeyihiin biyo labada dhinac midnaba aan la nooc ahayn oo laagoo u dhaxeeya. laakiin mawjadu miyaanay jiidhayninoo markay mawjadu xagga ka soo dhacdo dee intan yar intay qaato miyaanay xag ku daray? maya, laaggan yari kolba dhinacaasunbuu ula soconaya, dhanka mawjadu socoto luuqaasunbaa u dhaxaynaya, isku darsami maayaan. badda kahaafadeedii iyo dhanaankeedii iyo macaankeedii iyo kuwa waxeedii wadata iyo taa kale waxeedii wadata iskuma darsamayaan. intaa biyaha u dhaxaysee luuqaa dhanunbay ula guurguurayeen, laakiin meel fadaadoobaysaa ma jirto biyuhu ka tallaabayaan.